nabaday daawadayaal meel kastoo aad muuqaalkayga ka daawanayso war hadda uun soo dhacay oo aanu ka helay magaalada Dresden ee bariga dalka Jarmalka ayaa sheegaya in abaara 10kii habeenimo ee xalay toole uu weerar ka dhacay xaafadda Korbis oo ay Soomaalidu aad ugu badan tahay magaalada Dresden ee weerarkaasina ay ku dhaawacmeen tiro 3 dhalinyar Soomaaliyeed oo guriga weerarku ka dhacay ku sugnaa sidoo dhaawac u dhacay waxyaabaha sababay iyo dhalinyarada dhaawacyadoodu ilaa inta uu gaarsiisan yahay ayaynu muuqaalkan ku eegaynaa fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar lana wadaag asxaabtaada intaaynu muuqaalkan ku guda jirno waxaan khadka idin soo gelin doonaa mid ka mid ah dhalinyarada deganaa guriga uu ka dhacay weerarku iyo mid ka mid ah dhalinyarada ku dhaawacantay oo isagu dhaawac fudud soo gaadhay halka laba kale oo dhalinyarana dhaawacyo kala duwan oo culus ay qabaan waa tahay daawadayaal hadda waxa khadka si toos ah ugu jira maxamuud cabdisalaan oo ah wiilka degan guriga weerarku ka dhacay ama dhalinyarada Soomaaliyeed ku dhaawacmeen bal maxamuud waxaan intaynu muuqaalka ku guda jirno wax ka weydiin doonaa sababta kaliftay in 3 dhalinyar Soomaaliyeed ay ku dhaawacmaan dhismahaasi iyo sababta uu ninka baaskoolada wata aan horey idin ku baahinay warkii degdeg ah ayaan idin la wadaagnay sababta ninkaasi baaskoolada u soo qaatay iyo waxyaabaha kalifay ku soo dhawo walaal adigoo magacaaga ku bilaabaya walaal ku dhawaay aniga magacaygu waa Maxamuud Cabdisalaam Yuusuf maxamuudow walaal waxaad deganayd sida igu maqaalo ah ama warku igu soo gaadhay guriga inamadu ay ka shaqaynayeen inkastoo ay goor dambe habeenimo ahayd haddana weerarkani ka dhacay ama maaragtay dhalinyaradana ku dhaawacmeen arrinka maxaad kala socotaa arrinka runtii anigu waxaan gurigiis ka lahaa waxaan ahaa goobjoog guriga runtii markii aan imaanay gurigaygu waa furaan aan watay runtii arrintu waxay dhacday guriga kala yaraan saaxiibanaay baa alaab ka soo qaadanay alaabtii markaan guriga keenay qayb kamid ah banaanka oo 6 dhalinyaro baa mahayn alaabtuna aad bay u soo xooga marka qayb kamid ah fooqeynina waa iska ahay qayb kamid ah banaanka kaga nimi markii aan gudaha soo galnay lixdayadiiba waan guriga ku jirno baa hal mar ilbaabka la soo garaacay ilbaabka markii la soo garaacay oo nin dhalinyartii kamid ah aniga iyo wax weeye 5 dhalinyaro kale gudaha ku jirnay ninkii ilbaabka noogu dhawaa baa wuxuu mooday mid kamid ah anaga inuu baxay oo wax weeye alaabta saxbay soo qaaday markii ilbaabka si degdeg uu uga furayba furitaanku ilbaabka furay waxa noogu xigtay alla baaskooladba iyo nin iyo qof garaasa hadlay oo Jarmal oo waxa weeye aad u qaylinaya xanaaq ka muuqdo marka dadkiisa maqalay iyo alla baaskoolada maanta dadkii waa dhalinyarada meesha joogtay xil dambe maadaama iska ayado saacad meelaha 12 ahayd abaaro daaqaday ka jaran waxa weeye balkoonka oo gurigu lahaabay waxa weeye 4 dhalinyaro si degdeg ugu boodayba markuu wiilkii baaskoolada yeelina asaguna runtii xag gadaal buu soo noqday goortii ay dhalinyartii ka boodeen balkoonkii marka waxaan sameeyay oo cabaar baan taagnaa runtii waa arrin naxdin leh markii wuxuu dad kula jooganay carraan way isdajiyay ilbaabkii baan aaday xaqiisii waa qoraansaday bise nin baa wuxuu taagay halkaas oo kale saas oo kalena gacan baaskoolada ugu haysta nin kalena waa u dhow yahay qof dumarana waxay soo taagan tahay jarjarta meesha guriga laga soo koro waa gartay inta markaan arkay waa isdajiyay waa la hadlay maxaa jiraan ku yiri maxaa halka ka dhacay maxaa samaynaysaan su'aalo badan oo wax weeye isdaba joog oo xanaaq ku jiro aad weydiiyay ka bacdeed waa isdajiyay wax dhibaato ma jirtaan ri waa soo dhawaaday ilbaabkuna uu balqan yahay ilaa markii uu furay yarkii ma uusan xidhin yarkaas ma wuxuu kamid ahaa dadkii dhacay mise uu taagay isaguna ma 4 dhalinyaro markii boodey 6 aanu ahayn wax weeye aniga iyo nin kale guriga ku hanay waa dhaawaca dhalinyarada dhaawaca qabtaa waa imisa imaka waxa weeye dhalin 3 nin bay ahaayeen sheekada inoo wad halka markaad maranaysaan aad ninkii wada hadasheen waxyaabaha aad ku wada hadashay wax ma ka xasuusataa waa ka xasuustaa adoo su'aal baan weydiiyay maxaa jira ma dhib baa jirtay baan ku ka bacdi wuxuu yiri dhib ma jirtay waxa weeye maxaa samaynaysaan maxaa meesha ka qabanaysaa garanaysaa runtii qof aad xanaaqsan uu ahaa anigana maadaama ay meeshii dhalinyartii baaskooladiina aan arko waxa weeye dhalinyartiina ay yaacday aniga runtii waxa weeye xoogaa si baa argagaxi galay mogtahay wadalada uu ku hadlayay qayb aan xitaa si fiican u xasuusan si degdeg ah ilbaabka u xidhayaan marka goormaad ogaateen in dhalinyaradii daadatay oo dabaqa saddexaad baa deganaydeen sida warka nagu soo gaadhay in dhalinyaradii daadatay goormaad ogaateen oo dhaawac yihiin
markaan albaabka xidhay aduu isla markii aan albaabka xidhnay waxa weeye booliskan hore ka wacay booliska markii aan lambarka wacay oo dhameeyey booliska oo booliskii ugu yiri waynay maana halkina sii jooga waxa weeye balkoonkan aadnay labadeedii markaan balkoonka aadnay saddex afartii wiiloo booday wiil kamid ah waxa ma gaarin asagu ku balkoon buu booday kabacdina asagii baa nala hadlay war nimankii halkan jifjifaan waa dhaawac qayb kamid ah maxaa idinka nabad qabtaa buu ugu yiri warna waa nabad qabnaa halkiina jooga booliskan wacnay booliskan oo imaanaya sidii baa waxa weeye booliskana noogu yimi marka dhalinyarada dhulka iyagu ku dhacday dhaawacyada soo gaadhay intee leegihiin wallahi runtii horta waxa weeye nin adu waxa weeye misigta iyo qaarka dambe waxa weeye dhaawacaad uu gaadhay maadaama guriga meesha ka hooseeyay ahayd meel sibir oo waxa weeye laamiya nin kalena adu ruuga iyo waxba ka soo gaadhay midna halka cagta hoosaaba ayadana wax ka soo gaadhay inna surka iyo meelaha xoogaa wax ka gaadheen malaha asagu booliisku markii uu yimaaday maxaa arrinkii sidee booliisku ay u galeen runtii markii booliisku noo yimaadeen waxa weeye waa noo yimaadeen booliisku waxay dhaheen wuxuu dhaceen maxaa sameynaysiin inuu kuwaana wareysteen markaan wareysigii u sheegnay waanu ku dhisidaa waxa weeye kabacdina dhowr su-aalood oo kalena weydiiyeen oo waxa weeye ma arkiiseen baaskoolada ma hubtaan yaa albaabkay nagu soo garaacay waxyaalo noocaasi su-aalo noocaasina weydiiyeenay su-aalaha markii na weydiiyeen wax kasii badan na weydiin sida waxa weeye sharciga haddii adreesadii wixii ay naga qorqoreen dee arrintan waxa weeye dib ay magaranaysa kiiskaasi uu ka furmi doono baan insha allah rajaynaynaa oo waxa weeye dee markaa ninkii wax tallaabaa kamay qaadin weli oo kiis madaniya ka dhigeen maadaama aanay isagoo baaskoolada gacanta ku haya ugu imanin si haa maaduu ninkii dee kiis madaniya ka dhigan oo waxa weeye waa noo yimaadeen meeshii ayaga asagana waa u tageen baan filayaa sida aan u maanayo marka waxa weeye waraysi un bay nala yimaadeen anna markii baan waxa weeye booliska u sheegnay meesha taxtaa inaan waxa weeye aniga laftiga waa safe sii ahayn dee martii baa waxa weeye markii xalay baa guriga noogu dibisay meel kalaa laydii qaado gurigii waa laydinka qaaday gurigii meel aduu waa u sheegay booliska dee waxaan ku yiri meesha tani safe maaha sidaa laartigeeda anigu kuma sii noolaan karaa ninka horan bay soo qabateen ama wax hore maydi ka dhexeeyeen maadaama la sheegay inuu dabaqa idila deganaa may hadda ku horna ismaana arag waxa weeye nomanay maanta markaad eegtina waxa weeye saddex qof maadaama runtii markii asagu baaskoolada watay ninka kaloo la socda sida aan jeclahay alwaax buu gacanta ku haystay dad dagaal ku diyaar garoobay yani aniga ila muuqatay maadaama aan ugu jeedno waxa weeye baaskooladu haystay yarka kale aan markii hore soo arkay maadaama yarka markii hore soo arkay aniga laftigeegu waxaan u arkay aan u soo aaday meesha bal horta waxa hubi iska carareen marka labadiinuba baaskoolada waad aragteen waa aragnay baaskoolada aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa maxamuud cabdisalaan oo deganaa ama gurigaasi ku qornaa weerarku ka dhacay oo aanu khadka telefoonka ku wareysanay isagoo jooga magaalada Dresden waa hagaag bal hadda isagana dhankiisa waxaynu wax ka weydiinaynaa mid kamid ah dhalinyarada ku dhaawacantay gaar ahaan dhaawaca fudud ka soo gaadhay hadda uu dhakhtarka ka soo baxay saddexda dhalinyaradu kamid yahay Suldaan baa la dhahaa Suldaan Konto oo wareysigii u dambeeyay aan magaalada Dresden idii ka soo qaaday maalmihii dhaweeda aan ku sugnaana kamid ahaa dhalinyaradii aan wareystay bal hadda Suldaan baan naadiyaal ka dhigo isagana weydiinayaa sidii wax u dhaceen waxyaabuhu ka xasuusta maadaama isagu markiiba booday in dhalinyaradii booday dhaawacyada soo gaaray inta la kaayeen maadaama isagu aanu dhaawac badan soo gaarin sida uu isu badbaadiyay kusoo dhawow Suldaan stuudiyaha ugu horeyn nooga warbixisaa xalay halka weerar baa ka dhacay weerarka horta sidoo kula muuqday adiga walaalo weerar cunsuriyad oo ahay oo macnaha cunsurnimo xageeda horta magacayga aan ku bilaabo magacayga waa Suldaan Koronto waxaan ku noolaa Jarmalka khaasatan Dresden Gorbatis xalay abaarihii markii 23 fiidnimo ama sidoo qofku yaqaano 11 habeenimo wiil dhalinyarta kamid guri ku guurayay alaab la qaadayna guri kale oo digayay aan alaabta la dhigaynay mar ay guriga alaabtii wada dhameynay oo alaabtii aan rakibeyno waxaa dhacday anagoo saddexna meel aan fadhinay oo jikada aan rakibeynay labada wiil oo kalena qolka fadhiga ay jiifeen oo macnaha ay alaabta jiifka ku rakibayeen ilaahay mahadiis waxaa dhacday nin albaabkii nagu soo garaacay dan wuxuu asuu waxba na weydiin oo wiilashii
saan usoo macnaha kor usoo qaatay marka wiil kamid ah kor u qeelsho dhaha alla biskoolada marka anaga wax maan hubsan macnaha nafta orada ku aaminka qodobka kaliya noo furnaa waxa waasi aan isku badbaadi karno dabaqa asaarnayna 3 biyaano ahaa dabaqii aan iska tuurnay alxamdulillah dhulkii si nabad leh maana ku tigin dhaawacyana soo gaaray laakiinse wax dhaawac saa'id oo macnaha oo hadda oo aan la taban karna ma soo gaarin gacmaha inay macnaha naga xukumaan oo kale iyo lugaha inay macnaha tar naga galo kale marka 3 wiil dhacnay marka 3 wiil ahaan ku dhacnay dhulkii aan macnaha tagnay ani ahaan dhaawac soo gaaray waa dhaawac xag jilibka iyo dhaawac lugta iyo dhaawac qoorta marka wiilasha kalena si isku mid ah waxa soo gaaray meeshan la dhaho sinta iyo jilbaha iyo gacmaha dhaawacyo ka gaaray markii waxa imaaday ciidamada booliska iyo kuwa demiska iyo kuwa ambulaansiyada alxamdulillah meeshaasi nabada nagala qaaday ninkiin waa la qabtay ani ahaan hadda isbitaalka ka soo baxay raajac li saaray wax ma jabnaan dhahay gurigeyga si nabad la ugu soo laabtay wiilasha kale ilaa hadda isbitaalka ku jiraan marka arrinka saas u dhacay كل أدوك واحد حب بدن كهيسا إنتي دعوتي أيها حب كبيرة كا أدوك بالكاد قاعدين يصير بالكون خلاص كل دعوة والله يعني إنه دبق صدر هذا كده عيتوس أدولك ودعي dhalinyarada dhaawaca cusub soo gaaray marka dhakhtarka ku jira waxa nooga warbixisaa dhalinyaradaasi dhaawacoodu sida uu yahay iyo maaragtay siday u kala culus yihiin wallahi labada ninba way culus yihiin dhaawacyadoodu waa dhaawac xag waa dareemi kartaa qof dabaq 3 biyaana ka soo dhacay dhaawacyadoodu waxay kala yihiin in macnaha sinta oo kale jilbaha la hormareen dhulka ay kula kor dhaceen marka madax ahaan uma hormarin ee lug ahaan u dhaceen marka waana kaasa ma laga yaabaa sababta keentay weerarka ninkooda ku soo qaaday baaskooladan iyo hubkan ay soo qaateen inay ahayd inaad qayliseen maadaama goob 12 habeenimo ay ku dhaweyd saacadu inaad qayliseen sharciga Jarmalkuna aanu ogolayn in wixii 10 habeenimo ka dambeeya in shaarka la dhibo wallahi niyo abaaradii 23 ahayd xalana waxay ahayd fooqan indi macnaha habeen caadi iska ahayd oo macnaha shaqo aan lahayn oo iskool aan lahayn hadii uu asay ahaan u qaatay inaan dhibnana waa meesheeda laakiin se qofka hadii macala dhib oo arko kale oo guriga buuq oo kale ku dareemo inuu macnaha dhaho iga daayo waa meesheeda waa hadal furan laakiin se nin cunsuriyad toos ka muuqato ahaa aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Suldaan Koronto oo kamid ah dhalinyaradii xalay ku dhaawacmay weerarkii magaalada Dresden gaar ahaan xaafadda Korbis ka dhacay waxa warbixintan idin soo tabinaya anigoo Sakriye Jeylaaniya intaynu warbixintan oo kala ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh